ciyaartii u dhaxaysay Ifie sidoo kale Macluw Abikar ayaa soo idlaatay taas oo ku soo idlaatay 3 gool iyo gool ee ku awood sheegatay Ifie ayaa sanadkii hore ku guuleysatay tartanka iskuulada kaas oo loo qabtay 6 tiim sanadkaanse uu ka dumayay tartanka sanadadii hore maadaama sanadkan laga soo dhigay 16 tiim kulankoodii ugu horeeyay ay ciyaareen wayna guuleysteen Macluw Abikar iyo sidoo kale Ifie ay kulanku u dhaxeeyay inkasta oo kulanka ahaa mid weerar badan ay sameynayeen labada dhinacba waxaad moodaa in feejignaan aad u weyn ay ka muuqatay qaybta hore maadaama qof walba uu ilaalsanayay goolkiisa laakiin ugu dambeyn ciyaarta ayaa noqotay mid furuntay kadib markii gool ay Ifie la imaaday qaybtii hore ciyaarta ayaana noqotay mid gool la isku fardhiyay oo Ifie ayaa 3 gool iyo gool kaga adkaatay kooxda ama iskuulka Macluw Abikar runtii waa ku dhaaraja Sports Balcad anaga oo magaca Cabdirasaaq Maxamed Aadan oo macalinka iskoolka Ifie insha Allah waxaan rajeynaa koobka inaan geen doono iskoolka Ifie insha Allah waxa isleeyahay saacunahay Ifie iskool waxaan rajeynaynaa insha Allah mar labaad inaan geen doono iskoolkeena insha Allah runtii maanta farxadeen lama soo koobi karo kulamada dambe insha Allah inaan badana rajeynaynaa kulamada kale hortii garoonka waxa loo soo galaa guul iyo guul darro Macluw Abikar Ifie ka baysa maanta milisdeeni laakiin midaas way dhacday hal kulan oo laga bashay waa caadi markay kulamada kale guuleysan doonaa insha Allah kooxda iyo taageeray waxa ay baaqi lahaa hal kulan dhib ma lahan kulamada kale ayaa ka qosli doona taageeraha iyo dadka oo taageer waxa ka rijay doona koobka inay geey doono Macluw Abikar hal kulan oo laga bashana dhib ma lahan insha Allah guuleysan doona ilaahay doora alxamdulillah aniga oo magaciisa Zikriya Xas Faarax waxa aad ugu faraxsanahay inaan dhaliyay maanta 2 gool oo maanta iskoolkeena aan u hooyi doono guul insha Allah waxaan rajeynayaa koobkeena baad inaan geeno iskuulkeena Ifie waa ku dhawahay rajo Sports Balcad wallahi dareenkay wax ma sidaysay laam gudarnada guushan waxa ka dambeeyay macallimiinteena iyo dadaalka badan aan sameeyay iyo ciyaartooydeeda iyo taageerayaasheeda waxaan rajeynayaa sanadka hore anaga qaadnay sanadkan sidiis la miisleena loo celiyay taageerayaashada waxa uu baaqayaa way mahadsan si ay garoon u soo buux dhaafiyeen sida ay taageereen ciyaartooydan dadaalka badan ee sameeyeen waa ku faraxsanahay dareenkan aad baan soo koobi karo anagoo dugsiga Ifie ka anagoo gaar ahaan dugsiga Ifie kabtankooda waxa aad ugu faraxsanahay guusha maanta aan ka gaaray dhigaana Macluw Abikar anuu guuleystayaashii hore sanadka hore mar labaad ay rajeenaa sanadkan garow aad u weynaan sameeyay aad aan ugu faraxsanahay guusha aan dhigaana Macluw Abikar ka gaarnay ummadana naga harsanay waxa rajeeynaa ciyaartooydeena inaan guul wada gaarno dhamaanteena ma waa rajeeynaa inaan hadda mar labaadna Ifie geeno anigu waa Jelaani Cali Muxuu Kamara kaamiradan quruxda badan waxaan u duubay saaxiibkayga Jaanka